السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا janalkan ku xiran ama page-kayga ku xiran dhammaantiin soo dhawaada. Waa muuqaal kale oo cusub oo insha Allah aad idiin cajabin doona sida aan rajeynayo. YouTube channelka asxaabta ku xiran meeshaas friendiskayga lah waxaa idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan idin xasuusinayaa inaad subscribe saartaan kambalaalka footaan si muuqaal walba idiin soo gaaro dhammaantiin aad sii share gareysaan muuqaalkana like aan noo saartaan. Dhanka kale asxaabta page-kayga la xiran ama kuwa YouTube-ka xitaa asxaab kamid oo page-kayga ku xiran baa jira. Dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaad sidoo kaleeto waxyaabaha la isaga baahan yahay waad garanaysaan aad gacanta noogu riixdaan oo aad follow dhahdaan like-na saartaan siina share gareysaan. waan idin xasuusinayay laakiin waafajinta Ilaah baa iska leh. Muuqaalkani wuxuu ka mid yahay muuqaalada aan idiin soo bandhigi jirnay ee ku saabsanaa ama ahmiyadda ama hadafkeena uu ahaa inaan ka soo duubno degmooyinka ama xaafadaha magaalada Muqdisho. Degmo walba xaafad walba inaan muuqaalkeeda idin tusiyo. Balanteena sidaa bay ahayd. Sidii baan rajeynayaa insha Allah inay ahaan doonto. Meeshaan hadda aan joogno xaafadahan asluubta la yiraahdaa degmada Dharkeyle ay ka tirsan yihiin sida ay sheegayaan dadka meesha degan. Kulli dhulkaani dhul banaan oo ahaa degmooyinka markii la sameynayay degmo ma raacsiisnayn laakiin hadda degmada Dharkeyle baa sheegata oo la yiraahdaa waa Dharkeyle. Anagu sida dadka meesha joogaan ay dhahayaan baan idin leenahay. Marka xaafadan aygaarka asluubta waaye waxaa kaloo laga yaabaa inay istirahdaan oo way galmudug waaba qaybo kamida. Galmudug qaybo kamida way tahay oo galmudugna dadka way ku magacaabaan laakiin dhanka asluubta maadaama ay xigto waxaan dhahaynaa marka waxa waaye xaafadahan asluubta lahaa inta badan waxayna u badan tahay meelo duur ah ama banbanaan guryaheedu aad hadda uma wada dhisna sida galmudug qaybaha kaleeto aad ku arki doontaan insha Allah. waxaad aragtaan dhulku inuu bacaad yahay caradiisu ay gaduudan tahay bacaadkan ama dhulkan waxaa bacaadka saa'idka inuu noqdo sii kalifay waxay tahay gawaarida maraysa ee adeegsanaysa laana wadadii way xiran tahay gawaaridiina inta maraan ay ku qasban yihiin bajaaj haba sheeginba waa rafaad ay ku maraysaa. dhulku marka uu iska qurxan yahay adinkoo dhan waxa aad uga xuntihiin oo madaxa idin xanuujinaya nadaafad darrada wadanka ka jirta. laakiin nadaafad darrada waxaan is leeyahay dadka hadii lagu soo rogo hal mar hadii uun amar inta la bixiyo la yiraahdo qof walba gurigiisa hortiisa waa inuu nadiif ahaado qofka gurigiisa hortiisa qashin lagu arko lacagna waxaa laga qaadaya inaan bal arkeenba wax qashin meel soo dhiga qashimada aruuriskooda lagu shaqeysan lahaa. Marka marxalad bay ka daran tahay. Marxaladan hadda aan joogno alxamdulillah waa nabadgelyo waa caafimaad. Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa anagoo intaan haysano inuu inta naga dhimana noogu daro oo noo dhameystiro. ihtimaam keenaysa anigu hadda dhowr mar baan is iraahdaa ama microphone inta ku xirto gaari aad tiraahdaa nimiyahow wax sida isku dhaamo Soomaaliya meeshaan iska qaado oo nadaafada ku dadaala. haddana waxaan macnaha ogahay far kaliya fool ma dhaqday Soomaalidu dhahaan hal qof kaliya qof waalan in loo arkayo laakiin amar hadii la dul saaro dadkan la dhihi lahaa nin walba gurigaaga hortiisa waxaa waajibka saaran inuu nadiif ahaado qashin uusan oolaanin. wadanka dhanba guriga isku tagtaga waay ninka marka asagoo qof walba ka cararaya lacagta canshuurta uu iska nadiifin lahaa. ta kala bacaha aad bay wadanka dhibaato ugu yihiin oo dhibaatada ku yihiin waxaa kamid ah hadda aniga waxaan soo maray oo aan arkay neef ari ah ee cunaya bac. wallahi aad baan uga naxay laanahu xoolihina way dhibaateynayaan dadkina way dhibaateynayaan caafimaadkii biyaadina way haleynayaan. waxa aad u fiicnaa lahayd bacdaasi total in la mamnuuco oo la joojiyaba oo dadku ay waxyaabo kale ay adeegsadaan qof walba inuu dambiishiisa qaataa la qaatay bacdan inta ay dhibaateynaysaa ka badan inta ay nafci keenayso. nafcigeedu iska yar waa in wax lagu qaato
laakiin waxaa leenahay dadka Allah fahansiiyo sida sabaabka ah ee wanaagsan ee dadka iyo dalkaba anfacaya. laana qof walba hadduu tiisa uun ka fikiro wax hagaagaya ma jiraan. haddaan aniga maanta nafteyda bas ka fikiro oo aanan dadka deriska ila ah aanan tooda fiirin, aanan dadka walaalaha ee tooda fiirinin, waxa aniga ii qabsoomo wax aniga hadhowdi dhib igu noqonayo waay. dadku marka inay intaas fahmaana muhiim ah. xaafadahan maadaama deegaan cusub ay yihiin oo deegaankoodu uu dhow yahay, wasaqdoodu ma badna, bulaacado quruna iyo sida muqdisho kaleeto gudaheeda ma ahan xaafadaha, waa carada nadiifka ah. ayaga marka kaliya waxaa laga rabaa geedkaas geed yuhuudka inay la dagaalamaan ay guryahooda hortoodana ka jaraan, nin walbana gurigiisa hortiisa uu nadiifiyo. booski banaano dee geed yuhuudka uu ku baxayne ninkii lahaa markuu yimaado dhisto waa uu iska dhamaanaya warkiis intaasoo ku egyahay. laakiin waxaan idiin aqaanaa Soomaali Maxamed waxay sameeyaan booska banaan bay qashinka dhigaan. gurigiisa intuu qofku qashinka kasoo xaaqo uu kasoo nadiifiyo wuxuu sameynayaa booska kasoo horjeeday banaan buu qashinka dhoobaya. hadda ayuu dhibaateynaya asi kaligiis ma ahan, dadkiiba dhan u dhibaateynaya. marka dadku iska ogaadaan ku baraarugsanaadaan imaatatul adaa can tariiqi sadaqa. xadiiskaasi macno weyn uu ku fadhiyaa. wadada oo qashinka laga qaado waa sadaqo. sadaqana waad garanaysaan fadligeeda iyo ajirkeeda. qof walba marka meeshuu qashinka ka qaadi lahaa hadduu asaga dhigo maxaa iga galo uu dhigo, wax noo hagaagay ma laha, wax noo qabsoomayana ma laha. bakaare ku qorteen dukaamada inta badan saasaa la isaga qoraa. markii bakaaraha laga fogiyo xaafado kale la joogo qiimihii bakaaraha lagaa siinayaa, waxba bakaaraha aadin waaye. macnaheedu intaasuu ka dhigay. waxaan idiin sheegayaa marka wadankan wuxuu rabaa dhalinyaro u kacdo, dadka kiciso, dhiiro geliso, waxyaabo badan u baahan yahay. aniga hadda intaan awoodeeda ah insha Allah waan soo gudbinayaa. intii kale awoodeeda noqoto beri ka maalin haddii insha Allah ay noqoto in codkeyga iyo hadalkeyga inuu meel dheer gaari karane biidnillaahi alkariim waan ku dadaalayaa. oo ahmiyadeedu waxay tahay mar walbo wadankeena horumarkiisa, wadankeena inuu horumaro dhaqaale ahaan, nadaafad ahaan, aqoon ahaan iyo bulsho ahaan dhan walba inuu ka horumaro. waa waxa aan mar walba jeclahay. adinkana waxaan rajeynayaa inaad nagu karabsiin doontaan. shukran lakum. waa ku mahadsantihiin karab istaagiina, dhiirigelintiina iyo waxqabadka aad macnaha iiga muujisaan kommentiyada dhexdooda aan ku arko sida aad ula dhacsantiin ama aad u rabtaan. waxaa muhiim ah marka dadku inay ogaadaan in taariikhda aan aniga soo bandhigayo ay tahay taariikh muuqaaleed. wadankan muuqaalkiisa inuu diiwaanka noo galo. maanta anaga hadda xilligii dowladii ay jirtay wadanku uu dee dunida Afrika oo dhan uu calanka u babanayay. Soomaaliya kaliya oo macnaha Soomaaliya wadanku ugu horumarsan ugu awooda badan Afrika ay ahayd. haddaan ka heli lahayn muuqaalo noocaan oo kale ah aad baa maanta ugu farxi lahaa wallahi. marka jiilasha naga dambeeya insha Allah ama anagaba isbedel weyn markuu yimaado wadanka dee kor loo qaado dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa. waxaan niraahno niyo marxaladan ka soo gudubno maanta heerkaan marayna alxamdulillah. intaa baan ka rabaa. inta aan ka raban insha Allah waa iiga suurta galaysaa laana waad i karab istaagteen waana ku mahadsantihiin. muuqaalkan insha Allah waxaan rajeynayaa inuu sii dheeraanin muuqaalo kale badan ee aan idin tusiyo aad idin qancin doono insha Allah. waa xaafada asluubta sida la yiraahdo degmada Dharkeeley. degmooyin badan baa dhulkan isku haysta laakiin degmada ku soo reysaan arki doona biidnillaahi alkariim. anagu maqaati un baan ka noqonaynaa bas wixii lagu soo raayo kooxdii soo badiso degmadii la siiyo markaasaan ku magacaabeynaa aan leenahay waa degmo hebel. guryaha inta dhisan iyo inta banaan baa badan. waa meel duur ah. marka waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.